dadka qaar si kala laga yaabay inuu fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaalaa waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo ma dhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirto ee way soo soo farjin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel ka iyagu dadka ka qosolsiiyo oo masaajidda uga qosolsiiyo dadka ayagoo marka ay dadka ka qosolsiinayaan waxyigii ka dhigayo baahideenna inuusan dabooli karin magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas yiri magaca adiga wuxuu yiri cook ayaa la dhahaa watarakuuka la bishoogaysaa watarakuuka cook ma sheegaysa inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam mucaad bin jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay mucaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaay kitaabki laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo igmanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri mucaad bin jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan ma farna fil kitaab min shay mufassiriinta qaar waxay ku fasireen si una isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhan waa looxul mahfuudka wax la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa looxul mahfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu u fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhibo ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisi waxa la mid oo saas oo aaminsan ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhahay ya is arkeen xunana kitaabkeen wax kasta uu sheegaa markaas uu kitaabkiina wax kasta ma sheegaa magacayga ka soo saarba kitaabkiina ayagoo dadka marka qaab shactara oo kala ah uga dhigayo dhalinyarada dadkuna ay iska qoslayaan khutuurada ku jirtana aynan dareemaynin oo waxaad maqlaysaa marka qof isagu dhahayo dad baa waxay yiraahdeen quraanka wax kasta waa laga helaa ayay yiraahdeen quraanku sidaan isu maamulayna ma ku jirto saan isu dooranayno madaxweyne u dooranayno ee muddada madaxweynaha kayta waxyaabahaas quraankii miyaa laga helaa wax walba quraanka kuma jiraan marka wuxuu cuskaday ama uu daliil ka dhiganayaa hadana nabigu sallallahu alayhi wasallam mucaad ibn jabal buu yaman u diraayay marka wuxuu mucaadi oo ku yiri bima tahkum maxaad ku xukumaysaa markaas uu mucaad wuxuu yiri bi kitaabillah kitaabka allah ku xukuma haday qadiyad ii timaado markaas baa waxa la yiraahdaa fa in lam tajid hadaadan ka helin kitaabkana sunnada hadaadan ka helin ajtahidu bi ra'yigaygan ku ijtihaada waxa laga qaadanaa buu yiri marka meeshaas fa in lam tajid quraanka inaan laga helaynin waxyaabaha qaar xadiidkaas saxiix miya mase waa daciif markaan leeyahay maqbuul iyo marduud saxiix iyo daciif miya iyo markaan leeyahayna culumadii hore ee wax cilmiga u lahayd xadiidkan anuu ka hadlayaa xagga ii dhig sixatan wa dacfan maba uga hadlaya hadda xadiidkan sidiisaba aan usoo qabanaba inuu daliil yahay aan ka dhigno fa in lam tajid macnaheed fa in lam tajid anta waay haddaadan adiga mucaadow ka helin seed yeelay adiga haddii qadiyadaas qur-aanka aadan ka helin arrin marka waa marka wax ku saabsan mucaad adiga mucaada haddaadan ka helin qadiyadii kitaabka ka waran
way dhici kartaa aniga inaan qadiyad kitaabka ka fahmi waayo ama aan ka arki waayo ka fahmi waayo, adigii waa dhici kartaa inaad ka fahmi weyso, qof kalena inuu ka fahmo waa dhici kartaa. marka haddii Mucaadow adiga aadan ka helin baa la yiriye haddaysan ku jirin lama dhihin. marka waxaan aad ula yaabay ninkaasi muxuu soo kordhiyey. marka Mucaad waa dhici kartaa qadiyad inuu kitaabka ka heli waayo, غeyrkiis min asaxaabana inuu ka helo waa dhici kartaa, laakiin fain lam tajid inaad ku macnayso fain lam tuujad fi lkitaab, haddii kitaabka aan laga helin ama laga waayo inaad ku macnayso aaday qalad u tahay. macnahaasina macno laysku qabsanayo ma aha. fain lam tajid macnaheedu waa iska macruuf, fain lam tajid anta ay anta, adiga haddaadan ka helin waayo, haddaan qur-aanka laga helin ma aha. marka in la yidhaa ta kale qur-aanku baahiyaheenna oo dhan adduun iyo aakhiro qur-aanku wuu daboolayaa, oo Allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay, waxaanu korkaaga kusoo dejinnay kitaabkii isagoo wax kasta caddaynayo yidhi tibyaana likulli shay, wax kasta oo bani aadamku baahi u qabo qur-aanku hanuun buu kaga helayaa oo waa caddaynayaa. sida uu u caddaynayana waxay noqon kartaa mararka qaar binasi, nas ahaan inuu u sheego shayga. nas ahaan macnaha waxaan ka wadaa arrintii sidii iyada lafteedii inuu cabiro oo uu nas ahaan loo sheego. taas waa qodob. waxaa kaloo dhici karta mararka qaar bilishaarati waaliimaa inuu ishaaro, inuu tilmaamo, oo tilmaamtaa dadka qur-aanka luqadiisana yaqaano, waxa uu u baahan yahay qur-aan in wax looga istinbaadana dadka yaqaano way kala soo bixi karaan. mararka qaar bilmafhuum waa laga fahmaa, qadiyad buu qur-aanku si toosa u sheegay, laakiin wixii uu tooska u sheegay toos ahaanna xugunaa looga qaadanaa, faham ahaanna xugun kale yaa laga qaadan karaayo mafhuum baa la yihaha kaasna. marka walidaalika marka la leeyahay kitaabka iyo sunnada waa aslayn, qiyaaska iyo ijtihaadka culummadu ayagaa u asala waayo. ninka caalimkaa markuu ijtihaadayo saldhigiisu waxa uu yahay alkitaab wasunna, asalka oo wax ka qiyaasanayo waa inuu daliil leeyahay. idan marka xataa istimbaadka culimada ay istimbaadayaan qur-aanka iyo sunnada unbaa asal u ah. marka qur-aanku xaaditho walba, dhacdo walba inuu farta ku fiiqo dhacdo ahaan dhacdada magacaas iyo magacaas leh, saas iyo saas waaye. cali yani maalan maxamed faarax sidaas iyo sidaas u ahaa, faarax jaamac saa iyo saa iyo saa waaye ma dhahayo, laakiin wuxuu ka hadlayaa qur-aanku waxay tahay xugun guudow bixinaa, afraad badan ayaa soo gelaysa. marka afraaddaasi marka waxaa laleeyahay qur-aanku kama waramin, maya lama dhahayo, waayo mar haddii qur-aanku uu si qaacido guud uga waramay wou ka waramay qur-aanku, waxay u baahan tahay aqoonteeda. ta kale haddana qur-aanku waxaan arkaynaa iyo sunnadaba waxaan arkaynaa mararka qaar waxaa wax looga qaataa waxyaabaha imaanayo ee dadka dabcan gadaal kaga imaan kara dadka. hadda maalan ninkan tilmaamayo waxyaabaha tusaalaha usoo qaatay, yani seen isku dooranaynaa iyo lawaa-ixda idaarada, hab maamulka, sideen arrimahan u maamulanaynaa, qaabkeen u maamulanaynaa markay joogto qur-aanka iyo sunnada miyaan ka hadlina? way ka hadleen. waxyaabaha idaarada ku tacalluqdo lawaa-ix idaariya la yiraahdo, maamulada iyo habkooda iyo waxyaabaha ku saabsan badanaa dadku say ugu heshiiyaan waay. nebiguna wuxuu yihi sal ll ly slam almuslimuuna calaa shuruudihim, muslimiinta shuruudooday ku taagnaanayaan, ilaa shardan axalla xaraaman aw xarama xalaalan, ilaa shardi xalaal xarimo ama xaaraan xalaaleeya maahani. ani adiga markaan mucaamala min almucaamalaadu hadda soo korodhay aan ku macaamilayno, shuruuddii aan wada dhiganno shareecadaa loo fiirina, haddaynan shareecada ka hor imaanin shareecadu waa kuu ogoshahay. marka ma ka hadashay shareecada mase kama hadlin? way ka hadashay. marka way ka hadashay oo waxay uga hadashay waxyaabana annagaa naloo daayey, waxaas naloo daayey laakiin shareecada noo daysay.
yani waana inaynan ka hor imaanin qawaacidda shareecada. mar haddii aan marno daabitkaas oo aan sidaas u dhaqanno waa saxsannahay, shareecadana daliil waa uga haysanaa. xaggee marka laga keenayaa marka diintu waxaas kuma jiraan iyo kan kuma jiraan, xaggeen rabnaa inaan wax ka doonno waayahay. culimadii horena waxay caddayn jireen waxyigu inay wax walba u ku dhan yahay,